waxaan rabaa inaan ka hadlo fatahaadaha ka dhacay Hirshabeelle gaar ahaan ugu badan Hiiraan waa musiibo qaran mar walba iyo sanad walbana waxaan ka tacsiyeynaa musiibadaas ku dhacaysa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hiiraan waxaan aad uga xumahay in sanad walba aan tacsiyeyno dhibaatada ka dhacaysa meeshaas marka waxaan ka codsanaa dawladda federaalka inay ajenda saxan kala timaado arinkan oo ah run ahaantii arin aad noo danqaysa haddaan nahay xildhibaanada ka soo jeeda dawlad goboleedka Hirshabeelle sidaan wada ognahay fatahaadaha dhibaatooyin badan ayay u geysteen dadka ku dhaqan Hirshabeelle gaar ahaan dadka reer Hiiraan waa xanuun taabanaysa oo aanan u adkeysan karin waxaan ka codsanayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha danaha Soomaaliya iyo dawladda federaalkaba in ay arinkan ka foojignaadaan oo yacni ay mar dambe soo laalaabanin haddana ay maxay ahaydee gurmad degdega u fidiyaan dadka meeshaas ku dhibaataysan sida uu professorka sheegay biyihii hadda fatahaaday sameeyeen dadkii way barakiciyeen wax yar kadibna way cagaaranayaan oo waxay sababayaan cudurro kale waxaan ka codsanaa in wasaaradda caafimaadka sida ugu dhaqsiyaha badanna arinkan ay uga hortagto dadka ka soo jeeda Hirshabeelle ee ku dhaqan qurbahana ay arinkan u soo gurmadaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan rabaa inaan idinku wargelino anagoo ka tirsan yani xildhibaanadii ama senataradii aqalka sare ee Hirshabeelle waxaan rabnaa inaan soo jeedino yani dhibaatada ka dhacday yani Hirshabeelle gaar ahaan waliba aaga Hiiraan oo beledweyne waliba yani fatahaad xun baa ka dhacday saan la wada socon la socotaan fatahaadaas waxay geysatay waa masiibo dabiici ah oo waliba soo noqnoqoto masiibadaas waxay sababtay yani barakac xoog leh dhibaato weyn oo waliba yani keentay yani barakacaas uu keenay dadkii qaxay oo goobo aan goobahooda ahayn iyo ganacsigooda aan ahayn ganacsigooda ka qaxay guryahooda ka qaxay tagay yani goobo kale oo ka fog meeshii dhibaato badan oo muxuu ahayto ku haysato dhaqaale yari ah waliba dad danle ahaayeen cunto yari muxuu ahayto daryeel la'aan kale ee dhankii maaragtay dhibaatadii dhaxantii iyo kaneecadii aysan haysan marka dhibaatooyinkaas dhanaa meesha ku haysta waliba ha ugu sii darraato dadka caruurta iyo haweenka iyo dadka da'da ah caruurta waliba ka hooseysa da'dooda 5 sano oo aad iyo aad macluul xoog leh iyo dhibaato xoog leh laga soo sheegayaa muxuu ahayto gobolkaas masiibada ku dhacday fatahaada waxa kale loo soo sheegayaa cudurradii malaariyadii oo aad u soo ritay dadkii taagta yaraa oo waliba dhibaatadaas ku sii dhacday oo qaxi iyo muxuu ahayto iyo gaajadii ay u sii keentay difaacooda hoos u dhaca waxay kaloo yani sababtay yani qabowgii iyo muxuu ahayto iyo hoy la'aantii marka dhibaatooyinkaas badan baa laga soo sheegaya meesha saas awgeed marka waxaan rabnaa inaan baaq ugu dirno dhammaan dawladda muxuu ahayto federaalka muxuu ahayto hay'adaha yani UN agency-ka international NGOs-ka dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed dadka yani muxuu ahayto ilaahay wax siiyay haddana gobol ka soo jeeda dhammaan iyo Soomaalida oo dhanba in loo gurmado oo yani gurmad dhinac kasta ah يعني لو محاهيتو laga geysto ayaan yani ku baaqaynaa si loo daryeelo ama loo badbaadsho yani masiibadaas ku habsatay yani dadka ku nool gobolka oo waliba ugu badan caruurtii haweenkii iyo dadkii da'da ah waxa kale oo ayadana muhiim ah in la xuso in arintan soo noqnoqotay oo waliba ah yani biyo baxada ah oo maaragtay fatahaada ah in dabcan laga yeesho istaraatiijiye loogu hortagayo intii yani sanad kasta gurmad la gali lahaa iyo qayladaan in yani siyaasad jeysan oo lagu xakameeyo in la helo mid muxuu ahayto maamulka yani dawlad goboleedka ka bilaabato ilaa yani dawladda federaalka ilaa hay'adaha yani gacanta ka geysta taas kale waxaan kale rabaa inaan ugu mahad celiyo halkan intii gacanta ka geysato hadda gurmadka ugu horeeyay
ugu horeyso muxuu ahayto dawladda federaalka iyo hay'adaha kale ee durbaba yani gurmadkan gacanta ka geystay waxaan rabaa in halka ayadana aan u jeedino maaragtay maxaa ay tahay macallin bogaadin inta kalena baaqa aan u dirnay ayaa ah in degdeg loo gurmado dadka yani dhibaatada maxaa yeelay markii saas oo kale ay dhacdo oo ay dhacdo maxaa ay tahay biibaxada saas ama fatahaadaas waxa xiga oo inay ka dilaacaan cudurrada halis ah gaar ahaan waliba cudurrada faafa marka si waxyaabahaas looga hortago waa in gurmad degdeg la sameeyaa ha noqoto dhinacii gurmadka oo shatalka mahooyiga ah ha noqoto dhinacii kale oo muxuu ahayto cuntada ah oo lala gaarayo dadka yani taagta daran iyo ha noqoto xaggii daawooyinka kala duwan gaar ahaan cudurrada faafa ee ka dilaaci karaya ama ka dilaacay qaarkoodba ka dilaaci karaya muxuu ahayto goobahaas yani masiibadu haleeshay saas awgeed baaqaas mar kale aan ku adkeynayna waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala gurmadkaas inuu degdeg noqdo midda kale ugu dambaysa waxaan rabaa dhammaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa ka soo jeeda muxuu ahayto gobolka muxuu ahayto maamul goboleedka Hirshabelle in ay sameeyaan gurmad degdeg ah oo diyaar u nahay in gurmadkaas loo dhaqaaqo si loo badbaadiyo cudurrada ka dilaaci karayo muxuu ahayto goobaha saas yani masiibooyinka fatahaada ay u haleelaan aad iyo aad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh